السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الرزاق أحمد halkan naga daawanaysan waa Cabdirasaaq Axmed official kusoo dhawaada mawduucayna maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa sida shashada aad kasoo aragtayba qaabka maxaa la yiraahdaa loo isticmaalo ama loo sameysto akoon IQ option ah. IQ optionka waxaa waaye waa qayb ka mid ah forex-ka. Waxaa loo isticmaalaa in online lagu trade gareeyo yacni sarifka lacagaha. Marka waxaan rabnaa qaybtiisa IQ optionka inaan qaabka loo isticmaalo, qaabka akoonka loo sameysto, qaabka loo verify gareeyo iyo waxyaalahaas oo kamid ah inaan ka hadalno. Marka koowaad markii aad rabtid akoon IQ option inaad ka sameysato, marka koowaad waxaad u baahan tahay haddii aad telephone isticmaaleyso si fiican u daawo, haddii aad laptop isticmaaleyso asigana waa la mid. Marka koowaad waxaad tegeysaa maxaa la yiraahdaa Chrome-ka tegeysaa. Chrome-ka markaad tagtid waxaad qori doontaa iqoption.com ayaa qori doontaa. iqoption.com markaad tagtid waxaa kusoo bixi doona qaybtan IQ optionka ah. Inta waxaa kugu soo qoray trade stocks, forex options and cryptocurrency. Waxaan sameyn doonaa IQ optionka asiga shuruucdiisa waxaa waaye qofkii la socdo waa uu yaqaanaa, laakiin qofka aan la soconin IQ optionka shuruucdiisa waxay tahay asiga waxa ugu yar aad ku deposit gareyn kartid waa $1. Lacagta aad dhiganaysid waxa ugu yar oo aad ku invest gareynaysid oo suuqa aad la soo gali doontid waa $1 ugu yar. Waxa aad deposit gareyn kartid waa iska ognahay $10 ayaa ugu yar. Asiga brokerkan shuruucdiisa ayaa u degan. Marka anaga waxaan rabnaa in aan sameysano akoon cusub iigu jiro. akoonkan waa iska kansalaya. Waxaan rabnaa inaan sameysano logout leader akoon cusub ayaan sameysanaynaa. akoon cusub markaan rabno inaan sameysano meeshaan waxaa oo falaarta ku dhufanaynaa qaybtan falaarta. wuxuu ku leeyahay geli akoon cusub geli. Marka waxaan leenahay anaga meeshaan waxaan ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay don't have an account sign up. meeshaas ku dhufan doonaa. wuxuu ku yiri magacaada koowaad geli. magacaada koowaad tusaale ahaan magacaada koowaad aad gelinaysaa Cabdi, magacaada labaad Cali waa tusaale. phone numberka aad gelinaysid waa numberkii oo kuugu soo dhici doona password maxaa la yiraahdaa confirmation code-ka. numberkaad gelinaysaa tusaale ahaan numberkaad gelinayso tan oo kale tusaale waaye. tusaale ahaan numberkan aad gelinaysaa. password aad sameysanaysaa. passwordkan wuxuu ka caawi doonaa hadhowti markaa log in dheheysid aad gelinaysid password aad taqaanid. waxaad gelinaysaa capital Abdi aad leedahay. Abdi markaa qortid 20 ayaad geli doontaa. 20 ayaad geli doontaa. Abdi 20 markii passwordka uu noo noqdo wuxuu ku leeyahay Abdi 20 markuu noo noqdo passwordka wuxuu ku leeyahay passwordkan weak waaye. inaad strong ka dhigtid inta oo ka dhiman space-ka. marka tusaale ahaan waxaan ku daraynaa $4 gees aan ku daraynaa. marka meeshii waa buuxsantay. marka passwordkan strong waa I confirm ayaan leenahay. kadib waxaan leenahay open an account for free aan ku dhufan doonaa. meeshaan wuxuu noo soo qoray invalid account number or email. okay inta email aan ka dhigano. markaan number ka dhigano xoogaa waxaa ka adag inka email ka dhigano. emailka tusaale ahaan emailkan aan gelinaynaa. emailka markaan gelino emailkan ayaa gelinaynaa yaracali@gmail.com 179197@gmail.com. kadib open account aan leenahay. open an account for free.
passwordka ma ku save gareeyaa ayuu ku yiri save aa leedahay wuxuuna dhex geenayaa trade roomkii ayuuna dhex geenayaa waa kana wuxuuna keenay wuuna furmay wuxuuna keenay qaybtiisii gudaha wuxuu kor noogu soo qoray you have successfully registered waxaan raadinaynaa waa kan you have successfully registered si fiican ayaad isku diiwaangelisay meeshan wuxuu noogu talagalay inaan qaadano 10,000 oo demo account ah aan ku trade gareyno ama aan suuqa ku barano sidoo kale waxaa isticmaali doonaa account real ah si aan lacag real ah u helo inta wuxuu ku yiri marka start training ama top up your account to withdraw real fund yani inaad lacag runa aad gashato maxaa la yiraahdaa oo soo lacag runa aad ka shaqeyso meeshan waxaan rabnaa anaga inaad trainingka ku sameyno hadda account muhiimadda waxay tahay account si loo sameeyo account waxaa leedahay marka start training aa leedahay start training markaa dhaha suuqii waa ikanaa meeshaan u keenay demo account ka haysto waa kan suuqii waxaa la yiraahdaa brokerkii iyo wixii oo isoo bandhigaya waa kana marka wuxuu yiri steps lama jiro 5 ilaa 5 qodob 5 step wuxuu yiri marka stepskan marka koowaad account waa samaysatay tigoo noo saaray maxaa rabnaa marka waxa aan rabno kale waxay tahay in aan select an asset you like in hadda tusaale ahaan waxaa samaysan doonaa waxaan dhihi doonaa lacag hebel ayaa lacag kale ku sarifanayaa meel kale tegi doonaa kadib waa kana assetkii ii saarnay waan bedelay number 2 select oo ii saaray tigo ii saaray wuxuu yiri your first forecast hoos marka wuxuu kusoo qorayaa try to predict where the asset price will go up or down tusaale ahaan hadda waxaa sameynaa trade galo uu leeyahay qiyaas tusaale ahaan marka trade aan galaya si meeshan oo tig igu saarno waxaan iska leeyahay suuqa anoo fahminba si tig ii saarno trade iska gala suuqa waxaan dhahay kor u socdaa markaan dhahay trade waan qiyaasay suuqi kor u aadaya mogtahay marka aniga meesheeda ku laabanaya meesheeda markaa ku laabto meesha maxaa ii soo qoray fast forecastiga tigo ii saaray sababtoo ah trade suuqa galay waa sahdaaliyay step asiga 3 saasa uu gudbay step 4 maxay noqonaysaa step 4 waxay noqonaysaa in aan confirm gareeyo emailkayga aniga email aan soo samaystay oo account-ka marka loo gareynayo account-ka ay galaya furanayo email aan soo samaystay iyo password marka wuxuu yiri email-kan confirm gareeyay oo shirkadda email la yaqaano oo shirkadda ugu diiwaan gashan ka dhig waa confirm aan dhahay marka wuxuu ii soo qorayaa intercode koodkii geliyo ii soo qorayaa marka aniga waxaa in cusub hadda gelinaynaa 2076 54 passwordka cusub waa kana oo saxda ah oo noo soo diray okay wuxuu yiri your account has been verified has been activated aan ka wada okay waxaa leenahay continue nole waa kana waa ka gudubnay afartii stepkii shanaad wuxuu ku yiri top up your account oo deposit gareeyay marka tan waa iska kansaleynaa depositkaas mar kale ayaan ka dhiga doonaa marka hadda account waa sameysanay waxa kaliya oo naga dhiman waxay tahay account inaan verify gareeno oo aan dalbano verification requestiga okay marka halkaas hadii nagu akaato account aan soo sameysanay waxaan rabnaa qaybta verification-ka inaan tagno verification-ka marka tagayno account-ka oo personal account horta aan tagno account-ka aan dhameystirno personal account qaybta personal account aad tagaysaa personal data ayaa ku dhufanaysaa personal data gelinaysaa xogtaada soo dhameystiraysaa okay waa kana personal data wuxuu yiri sawir saaro
Okay, waxaa kaloo anagana naga rabaa inaan active gareyno. Marka koowaad waa kana waxaa ujeedaa blue tick inay saaran tahay qaybta email address-ka waan soo active gareynay. Numberkaan active gareyneynaa. Okay, qaybta numberkaan nagu dhufo. Numberkaagii code ayuu kuusoo geli doonaa. Codeka uu kuusoo geli doono numberka marka aad wax ku active gareynaysid oo marka hore aad soo gashanaysid waxaa waaye inuu noqdaa number kuu daana si codeka uu kuugu soo dhaco. Okay, numberka codeka lagugu soo diray ayaad gelinaysaa. Waxaan soo gelinay numberkii oo noo soo diray codeka. Shantaas number ayuu noo soo diray. Lambaradaas soo gelinaysaa kadib continue ayaa leedahay. Waa kana wuxuu ku yiri your form number has been successfully confirmed. Okay, waa naloo confirm gareeyay. Ku soco qaybtii kale ayaa u gudbaynaa. Personal data ayaan dhamaystiri doonaa. Wuxuu ku yiri waxa aad tahay nin iyo naag waa gasho doontaa kadib taariikhda dhalato kale waa iska geline. Waxaana laga rabaa taariikhda kuugu qoran informationka aad gelin doontid waa inuu ka muuqdaa license-ka ama passport-ka ama ID card-ka aad gelin doontid oo inaad wax ku active gareysatid ama aad ku verify gareysatid u baahan tahay. Wax la iska gelinayo ma hadba waxa aad gelinaysid waxay ku xiran tahay waxa kuu qoran. Adowti card-ka, passport-ka ama card-ka license-ka, card-ka ID-ga waxa kuugu qoran in xogtaas inta ka soo baxda ayaa la rabaa. Tusaale ahaan aniga waxaan leeyahay xogteeda waxaa dhashay oo kale ka soo qaad 5tii bishii 9aad oo kale 1990. Okay, magaca oo kale aad soo qoratay oo kale kuugu jiro meeshaan oo hadhowti kor kuugu soo bixi doono. Wadanka aad ku samaystay Soomaaliya soo qoray sababtoo ah numberka oo activation code-ka kuugu soo diro waa Soomaaliya. Caasimadeeda Muqdisho. Haddaba meesha aad joogtid ayaad geli doontaa. Kadib citizenship-ka haddii adoo Soomaaliya aad Kenya u dhalato kale Soomaaliya aad joogtid. Haddii adoo Soomaaliya joogo wadamo kale u dhalatay wad meesha citizenship ayaa geli doontaa. Postal code-ka wax hadda muhiim ma ahan. Soomaaliya postal code ma laha. Adiga muhiimadda waxaa waaye 4 number oo postal code iska gelinaysaa. Address-ka ay ku soo qorayaan waxaa waaye meesha aad degan tahay address-kaaga. Badanaa Soomaaliya address ma lahan. Saameyn saas kuguma sii yeelanayso. Waxaa iska qoraysaa Hodan District. Kadib waxaa leedahay am as US reportal person. Haddaad gelisid US reportal person US reportal person haddaad gelisid wuu kaasoo diidayaa ujeedaa please uncheck oo ku leeyahay. Marka iska cancelaysaa kadib save and continue. Wuxuu ku soo qoray citizenship-ka ilowday. Tusaale ahaan citizenship-ka inaad u dhalatay Kenyan ba iska dheh. Citizenship-ku ka raba citizenship Palestine oo kale citizenship-keen waa kaas tiri waa save gareynaysaa save and continue ayaa leedahay. Waa kaas personal account-ina waa ku verify gareeyay TikTok ku saaray. Kadib waxaa leenahay ku soco continue leh. Waxaa jirta qayb kale oo afraad oo lagu dalbanayo verification code-ka. Waxaa ku dalbanaysaa yacni qaabka tictas bluega oo hadda personal information ka saaran. Waxaa la rabaa in hadhowti qaybta kore oo account-ka kuu soo fuusho. Marka waxaad sameynaysaa waxaad tegaysaa hadhowti linkiska hoos baa idin soo dhigi doonaa qaybta oo qaybta verification-ka. Hadda waxaad tegaysaa hoos linkiga ayaa idin soo dhigi doonaa. Waxaad qoraysaa IQ option verification code verification account. Marka qornay waxaa noo soo baxay IQ option account verification. Account-ka marka verify gareynaynaa waxaan ka codsanaynaa shirkadda Ticta bluega yacni cagaarka in naloo saaro. Okay, wuxuu dhahay proof of identity the document you sent must be clearly visible. Inuu documentiga aad soo dirtay si clear loo arki karaa yacni wax muuqdo. Documentigaagana waa in uu ku cad yahay ayuu leeyahay shuruudo ayuu wataa documentiga address. Documentigaagana waa in uu ku cad yahay inuu magacaaga buuxa, sawirkaaga, taariikhda aad dhalatay, xilliga uu dhacayo, documenti number-ka iyo signature-kaaga. Okay, waxaa leeyahay upload document. Documentigayga passport noqon kara wuxuu noqon karaa ID card
wuxuu noqon karaa maxaa la yidhaha driving license hadba documentiga dowlad ay haystay ay ku xiran tahay. Upload aan leenahay wuxuu leeyahay marka wadankii waa kan oo noo soo qoray madanka aan joogno. Wuxuu yidhi marka documentiga aad rabtid noocee waaye dalbo, ma passport ma license ma ID. Aniga passport ayaa wataa, qof walbana waxa uu wato ayay ku xiran tahay. Marka wuxuu yidhi upload a passport photo page, saan oo kale usoo sawiraysaa. Marka juice aan leeyahay aniga wuu isoo sawiran yahay, waa kana sawirkoo noo soo baxay. Kadib waxaan leenahay complete, please wait while we translate your file ayuu leeyahay. Documentigan hadda aan dirnay waxaa laga yaabaa in ay marka wuxuu yidhi your info has been submitted, waa la diray, thank you for filling out your information. Waa kana marka calaamadan ayaa saaran. Kadib calaamadaas markii naloo soo aqbalo saan sida calaamadahan oo kale oo hore inay noo noqoto ayaa loo baahan yahay. Hadhowtii markii tigtaas naloo saaro meeshaan tigta saaran tahay saan oo kale inuu hadhowtii meeshaan tig u saarmata ayaa la rabaa. Okay, hadda waxaa waaye waa dalbanay, waxaana laga yaabaa inay naga maqnaato 2 maalin inay naga maqnaato ayaa laga yaabaa. 2 maalin kadib tigtaas way soo saarmaysaa. Haddii cilado jirtana message ayay kuu soo dirayaan. Haddii message aa weysid 2 maalin kadib fiiri ku noqo akoonkaaga, waxay u badan tahay 90% haddaan message lagu soo dirin inay tigta kuu saaran tahay. Okay, anaga tradekeena ku noqonaynaa. Marka waa soo sameysanay akoonka, maxaa la yidhahdaa waa verify-ga waa dalbanay 2 maalin kadib insha Allah. Waa haddii aysan waxba kaa qaldaneen 90% verify-ga waa lagu sii doonaa oo meeshaan ayaa tig verify oo tig cagaar ku saarmi doontaa. Marka intaan ugu talagalay cashirkan intaas ayuu ahaa. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ka heshay videogan like saar, aad u mahadsan tahay. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.